goormuu ilaahay soonkaaga dan ka yeelanaya rabbi tabaaraka wa tacaala danaynaya oo la aqbalaya waa marka soonkaagu uu noqdo midka aad ka faa'iideysa alla ka cabsiga ee qalbigaagana hagaajiya xubnahaadagana xakameeya khayrka iyo taacada daahirka kuugu kaalmeeya bacda islaahi alqalbi xumaanta iyo dambiyadana ka reeb ومعناها معنه النبي تلمامي صلى الله عليه وآله وسلم مركو ليها الصوم جنة صومك وقاشان والشيء وحليس قد قوال وقاشان كي هي شهواتك انتذي بتانكي قلمذي حمانتي وحي حما أورن واللقود دي بصومك قاشان كي وحو إسلام مركا قاشان كي هي النار تنا قاشان بكي naartana maalinta qiyaamada wuu ka xigsanaya oo darbiga idin kala teedaya adiga naarta soonku noqonaya waa ka qabanaya biidin illah soonku haduu gaashaan yahay maxal raba marka فإذا كان أحدكم صائما متكين مركو صومن yahay فلا يرفث أفحما يدقن حما يسكوك ولا يجهل هذا الحن يدقن حن يحن iyo been iyo qabyaalad iyo qashin iyo dhulmi iyo xad gudub hasameeyni wa soomanta nabi wuxuu sallallahu alayhi wasallam fa in qatalahu ahad aw shatamu hadu cidi la dagaalato ama la caytanto yuusan ka ficil la qaadan hay yiraahdo waan soomanahay u fiirso soonku waa madraso laga barto dhaqanka wanaagsan wuxuu ku barayaa inaad naftaada xakameyn karto adoo lagu xadgudbay wuxuu ku barayaa inaad dulqaad yeelan karto adoo lagu caayay wuxuu ku barayaa in aad ruuxa ka joogi karto asagoo kula dagaalamaya wuxuu ku barayaa akhlaaqda wanaagsan iyo dhaqanka wanaagsan wuxuu ku barayaa xumaanta ruuxa ka timid inaad wanaag ugu badasho idfac billati hi ahsan soonku waa madraso ardayga ka soo qalin jabiyo si fiican darsigiisa u qaatay noloshiisa saameyn weyn ku yeelanaya waa ee kaliya tama ahun maalmo intay ku dhaafaan kadibna aad tiraahdo Allah aqbalo maaha waa madraso la doonayo inay noloshaada saameyn ku yar ku badasho kaligeedna maaha soonka معناها وحوي حبناها كلها وضا صون مركا التقوى كوغو كردينايو صونكو وا مركا حبناها او دن ودا سوميهين قلبيغا سومن او اندها سومن او دغها سومن او لوغها سومن او غعمها سومن او ودا سومن تahay او علوشا سومن تahay او حبينكا ترنكا سومن او ودا سومن تahay